golaha wakiilada puntland ayaa kulan ay ku yeesheen caasimadda puntland ee garowe waxay ku meelmariyeen go'aan ka dhana Soomaaliland. golaha ayaa gabi ahaanba mamnuucay in deegaanada maamulka puntland la keeno konteenarada badeecdaha ku jira ee laga soo dejiyay dekeda berbera. xildhibaanada golaha ayaa konteenarada ku sheegay inay curyaamin ku yihiin wax soo saarka dekeda boosaaso oo iyadu lafdhabar u ah ganacsiga puntland. go'aankan ay xildhibaanadu ku meelmariyeen inay mamnuucaan konteenaradaas ayaa waxa uu daba socda tallaabooyin hore oo Puntland ay ku soo rogtay badeecadaha uga imaada dhanka Somaliland. wasaaradda maaliyadda Puntland ayaa iyaduna hore u shaacisay inay cashuuraad dheeriya ku soo rogtay badeecadaha ka soo gala dhinaca Somaliland. gudoomiyaha golaha Barlamanka Puntland Cabdixakiin Doobadaareed oo ka hadlay konteenarada dekeda berbera oo ay shalay Barlamanka Puntland mamnuuceen ayaa yiri isagoo waraysi siinayay laanta afka Soomaaliga ee BBC-da haddii aan ogolaano konteenarada berbera ka soo dega waxa ay ka dhigan tahay inaan ogolaanay in badeecadahaas dhulka ay soo maraan oo dhan oo ay Somaliland maamusho ilaa duleedka Garowe oo iyagu kaliya ay cashuuraan. gudoomiyaha ayaa intaas ku daray in dhawaan ay rajeynayaan in dekeda boosaaso lagu daro meel konteenar ku soo xiran karo. Puntland iyo Somaliland ayaa muddo badan waxaa ka dhaxeeyay muran xuduudeed in badan sababay dagaalo, balse tallaabooyinkan ayaa muujinaya dagaal cusub oo dhanka ganacsiga oo ka dhex qarxay labadooda. Cabdilaahi Yusuf Abdilaahi Bakayle, telefishinka caalamiga Ariel TV, magaalada Garowe.